iyadoo madaxweyne Faroole maalintii shalay ahayd uu ku dhawaaqay in gebi ahaanba la hakiyay doorashooyinkii golaha deegaanka ee Puntland isla mar ahaantaana iska hor imaadyo dhiig ku daatay ay ka dhaceen qaar ka mid ah deegaamada Puntland lana gubay sanaadiiqdii codbixinta ayaa waxa arrimahaasi ka hadlay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Uganda iyagoona wax laga xumaado ku tilmaamay bisha barakaysan ee Ramadaan inuu dhiig ku daato deegaamada Puntland sidoo kalena waxay soo dhaweeyeen go'aanka uu qaatay madaxweyne Faroole ee ku aadan in dib loo dhigo doorashooyinka golaha deegaanka waxaan ka xunnahay dagaalka ka dhacay gobolka Puntland waa magaalo nabadeed waxa lagu ogaa Puntland Soomaali weyn inay isu keento inay ka shaqeyso maahan xagga kala dagaalka ka dhacay gobolada bari baabuurta la gubayo maatada la gubayo waxaasoo dhan xil baa ka saaran xil ayaa madaxweyne ka saaran eeg oo hoos aankaagi aad shalay gaadhay xalay gaartayna aad baan ugu faraxnay shalay meesha ka dhacay Puntland fal xun buu ahayo anigu ku wanaagsanay bil Ramadaan dhiig la daadiyo fal wanaagsan ma aha fal xun buu ahaa dadka shacabka ee Uganda joogana way ka xun yihiin aad bayna uga dhiidhiyayaan fal wanaagsan ma aha go'aan madaxweyne qaato go'aankii ugu wanaagsanaa weeye uguna qiimaha badnaa waxaan ugu baaqayaa maamulka Puntland wada hadal iyo wanaag iyo nabad inay ku dhameeyaan joojiyaan dagaalka ka dhacaya meesha Puntland waa meel nabadeed meel dagaal ma aha sidaasaan ugu baaqayaa wallahi aad baan uga xunahay wixii ka dhacay Qarno iyo maartay Boosaaso dadka halka ku dhintay waan uga tacsiyadeynaa heladoodii kuwa dhaawacana in Ilaahay u sahlo ayaanu maaragtay leenahay wixii ka dhacayna aad baan uga xunahay aragtida ku aadan qalalaasaha ka dhacay Puntland gaar ahaan magaalooyinka Qarno iyo Gaalkacyo aad baan uga xunahay mana aha wax loo baahnaa xilligan la joogo dadka ku dhintay magaalada Qarno aad baan uga tacsiyeenaynaa waxaan ugu baaqaynaa dadka shacabka ah inay isdajiyaan Iglan Saalax Ali telefishinka caalamiga Kalsan TV Kampala